Assalamu alaikum. Hi guys, waan salaamay. Maanta waxaa idin hayaa gabar la dilay, ninkeeda dilay. Kadibna markay diiday amar diido, ay dhahday arooskan waan aadayaa arooska saaxiibadeyda. Ayuu balan wuxuu ku qaaday haddii arooskaas aado inuu dilayo. Kabacdina sida aragteen muuqaalkeeda ayuu ka dhigay gabadhii, wajigeeda ayuu bedelay oo sida tan u jeedin ayuu u garaacay gabadhii. Adiga ahaan wiilow gaarsiiya muuqaalka intaad dhammaysan ka hor laagta iska saar, subscribe-kan iska saar xogaa dhimayso. Adiga ahaan wiilow waxaan ku weydiinayaa haddii xaaskaaga sida tan ahaan arooska aadin aad dhahday ayada aado go'aansato sida maan u garaaci lahayd. gabar ay adigana sidoo kale hadduu ninkaaga sida tan ku garaaco maxaad sameyn lahayd? Commentiga hoos nagu reeb faalada. Muuqaal yaab leh waayo oo Soomaalida badankeeda commentiga ka dhiibanaya, kuwana wuu ku saxsan yahay ayay dhahayeen, kuwana waxay dhahayeen wuu ku qaldan yahay. Badanaa ay gabdhaha garab siinayeen ay dhahayeen wuu ku qaldan yahay, asaga maan dhalin. Badanaa wiilashana ay dhahayeen asagana wuu ku saxsan yahay. Adiga ahaan fikradaada hoos nagu reeb. Haddii arrintan ahaan ku qabsan lahayd wiilow oo ka diido xaaskaaga ha aadin dhanna aado sida tan baad u garaaci lahayd. Sawaad iska dhaafilooda xuriyadeeda ayaa u day lahayd. gabaray haddii adigana kugu dhacdo arrintan gabadhan walaal qabsatay camaleeti maxaad sameyn lahayd oo adiga kula gudboon markaas oo fikradaada ah oo aan waxba ku saameyneynin haddii kugu dhacdo? Waxaan dhihi karaa aniga haddii aad nagu cusub tahay channelkane kusoo biiro subscribe-ka iska saar, haddii hore nala joogtana laagta iska saar. waa arrin la yaab leh inuu gabadhii quruxda badneed wajigeeda saas u bedelo oo garaaco. ani ahaan waa ila xun tahay sababtoo ah asaga maan dhalin. shalatu waxay arkeen ayagoo waaweyn oo taagtaagan. haddii ku anficay bismillaahi alxamdu iska dir dilkeeda ma lihid. sida tan la isku dilo isku maxaa dhacay? yuu la dagaalamayay ma nin ficiis buu la dagaalamayay mise wuxuu la dagaalamayay cadowgiisa garamaayo? tan dilka weyn waxaan dhihi karaa tan dilka weyn. gabadhii quruxda badneed oo sida taas u jaakeynaysa in saas loo bedelo waa arrin ila fool xun shay ahaantayda.